munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka qabsoontay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina ka dhacday hoolka weyn ee dawladda hoose degmada Gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal culimowdiin mas'uuliyiintii guddida kaambeynka ee xisbiga kulmiye ee heer gobol iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. oo ay ku horeeyaan haweenku oo ay ku xigaan dhalinyaradu oo ay ku xigaan dhammaan muqaasha iyo dadka maamulka iyo xisbiyada ku shaqeynaya oo maanta guusha soo hooyay oo gobolkii ka dhigay gobolka Kow hormoodka oo ah guusha maanta oo halkan caaw ku dabadalay gobolka Gabiley oo hormoodka magaca guddiga kaambeynka heer gobol waxaa halkan kaambeynkiisa socday ku ilaalinta iyo maalinta codbixinta in ay haweenaha gobolka Gabiley ay ka ahaayeen waqtiga uu kaambeynkaas ku socdo. madaxweynaha iyo madaxweynaha waxay ugu ducaynaynaa in Ilaahay ku asuro xilka ballaaran ee maanta la saaray ee loo laalin doono 14 bisha dhammaanteen kulmiyaynu nahay waynu guulaysanay guushan waxa ugu horeeya dumarka sharafta badan ee quruxda badan ee halka fadhiya caawa waxaan ka sugaynaa intaa labada markaa waxaan leenahay isagana mudana madaxweyne cimrigaaga la hagaajiyo caafimaadka Allah kuu barakeeyo والسلام عليكم وحكومتي نقول درسي بينوين تعالى international community أقول سيدا البلاد بينوصل كلام ما شاء الله عرفناها مدحوينه فلقابيها هواي كوكا وصميسي كل عمرنا قالوا الله أكبر وسارتها هرمانتها هوايتها تصل عصرنا إلا سمعيه سكوليه هواي كويسة الحمد لله رب العالمين وأمين كنا سيرنا مدحوينا ياشين كورني وبالله توفيق أنت حسن بقى بقى يا كابتن تقول شيء يا ماتا ولا شيء يا موسى تعتريه كذا بوقبي انتو عالم الدفاع عليه تأتيه كليش قوتر تحشوغي فرفوت روري عالم ديك علناي فاهيدو ما كيف قدري دار مسلسلة مكو موسى قمعي تدو ولا يمحي وبريو واقفا وتكشر ما تهيسكا موسى وناسا وخلصو تشيكري محمود كيري يسوع عليها هلقا بضربة صبرتك كنت قرابة صبرتك كوحفة صبرتك انت واحد وسعودي هلقا سوقاك واحد الوحوي شعب يقول يسمعك واحد مالعي واحد بسيطة بوي شعب يخرج بيجي وهمبليو هلقا كان يسوق اللي ايه نقوم ليسني مدحوينها مدحوين كوسب ايه يسوق ورني إنا نروح همبليينو xilka cusub ee uu dhiibnay inaan ugu hambalyeeyno ducada ugu tahay waxay isku hambalyeeynaa inaga hambalyeeynaa sababta isku hambalyeeynaa waxay tahay wixii aynu qabanay oo haweenweynaha waxaan malinayaa Soomaaliland inay nala qabin ee juhdiga iyo qalabka ku samaysanay ayaan isku hambalyeeynaa talaabada waxaan maanta leeyahay waxaan rajaynayaa وحوي دعاء ودعاء مدحدا aynu dooranay ayaan Ilaahay ka baryaynaa inuu rumeeyo waxaanu ka filnaa waxa weeye go'aan ka qaataan geesinimada leh ama cid soo xushaana waynu taageernaa oo laga baqayo waxa weeyaan waayaranimada ay leeyihiin iyo aqoonta ay leeyihiin ugu balan qaadayo inuu u fuliyo ummadda reer Soomaaliland ee codkiisa ee dhammaantood doorata ummadda reer Soomaaliland way doortay waxaan loo fulinayaa kuwii xisbiga kulmiye soo bandhigay barnaamijkiisii sidiisa u fulaya taasina waa horumarka ay Soomaaliland gaarayso ee ku qaabsanayso runtii gobol ahaan waxaanu gaar u xusanaa oo aan la iloobi karin waxaynu noqonnay inaynu kulmiyo wada doorannay marka laga yimaado gobolka ugu badan ee waxaynu noqonnay doorashada u soo baxa ay dadkiisu boqolkiiba 95 codeeyaan aad
baan runtii dadweynaha reer Gabilaa intaabu maharciyana waxay xisbiga kulmiye guushii ballaarnay ee aynu ka gaarnay doorashadii 13 November ka qabsoontay Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan hambalyeeynaa dadweynaha gobolka Cagaaran xisbiyahaniinta kulmiye haweenka dhalinyarada cuqaasha aqoonyahanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida ay u fuliyeen ballantii u dambeysay ee aynu u qaadnay gudoomiyaha xisbiga markii uu musharax ahaa ee aynu ligalinay taageeradeeda iyo codkeeda waqti haysiga lumini waynu ka dhabayno waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case Somni TV Gabilay